waxaa jiray nin waardiye ka ahaa xafiis aan ka shaqayn jiray hadda ka hor ka mid ah hay'adaha aan la soo shaqeeyay ee waaweyn. wuxuu fariisan jiray qaybta hore ee albaabka. waa waardiyaashan caadiga ee Kenyaanka uniformka xiran oo aan hubka wadanin dadka albaabada ka furo. ninkan habeenkii jaamacad ayuu dhigan jiray, subaxina shaqada ayuu soo gali jiray. nin wuxuu ahaa ixtiraam badan, karti badan, dabeecadiisa aad u fiican tahay. dadka shaqaalaha xafiiska joogana ay aad uga heleen firfircoonadiisa. wuxuu samayn jiray xafiiska oo waaxda maaliyadda iyo maamulka ayuu la shaqayn jiray. xafiiska wuxuu geen jiray warqadaha iyo fariimaha dadka u yimaada ayuu maaragtay albaabka hore ka soo qaada uu keeni jiray gudaha. wuxuuna ahaa nin aad u karti badan. habeen kastana jaamacadda ayuu ku dhafri jiray, subaxina shaqo ayuu soo gali jiray. dadaalkii dheeraa kadib dhowr sano wuxuu jaamacaddii ka qalin jabiyey koorsadii digriga uu sameynayay. wuxuu keenay grade fiican. kadib waxaa shaqo laga soo dhejiyey xafiiskii uu waardiyaha ka ahaa. booskii ayuu imtixaan u galay, wuu ku guulaystay, shaqadiina waa la siiyey. maalinkii dambe asagoo uniformkii intuu iska soo dhigay dee dhar qurux badan oo suuda soo xirtay, boorsadiisii laptopkiisii ka wato, ayuu shaqadii soo galay. si heer sare ayaa loo soo dhoweeyey. shaqaalihii kale ee waardiyaha saaxiibadiisa aad ayay ula dhaceen, dhiirigelin weyn ayay u noqotay. xafiiskii uu caawin jiray ayaa laga siiyey qayb ka mida kursi iyo xafiis gooni ah. halkaas ayuuna ka shaqo bilaabay. sababta aan sheekadan kugu sheegayo waxay tahay inaad ka tusaale qaadatid. midda kale, ninkan ma aha qof la iiga sheekeeyey, waa nin aniga la kulmay oo aan soo arkay. waa sheeko xaqiiqa oo aniga aan la soo kulmay. ninkan waxaan rabaa sheekadiisa inaad ka barataan, dhiirigelinna ay kuu noqoto xaalad walba iyo duruuf walba aad ku jirtid, inaysan ka turjumaynin mustaqbalkaaga. duruuf kastoo aad ku jirtid waa ka mira dhalin kartaa mustaqbalkaaga. waxaan rajaynayaa inay ku anfacday. fadlan la wadaag asxaabtaada. wixii talo iyo comment ahna hoos iigu soo reeb. waa mahadsantihiin.